RPG waa ku rakibin yahay waa daaran tahay kaamiradeedu waa tana saas u socay mar waa tan gudoomiye diyaaradan baalasheeda daroontan oo furfuran ayaa dhax taal daroonka hadda inta ka muuqdo gudoomiye waa civil purpose aan ahayn military hardware qalab military inuu ahayn alaabta marka daadir ma ka dalbe ninkaan adreeska soo weydiiyay aniga qofka marka ku dhahay ma taqaanid miyaadi qofka soo wac ma aqaan taleefankaaga xayisiin u saaran yahay miya مساج برا معروف واي nimanka busteejida joogo dooraya qabooy way nin bacwata la hebel kaale mal yaqaano laguna qiyaamo alaabtan oo ahayd machine lagu dhex qariyo alaabtan oo aan la arki karin ishii hore qabatana aysan fahmi karin FPV drone waa la hormariyay waana ay dhaaftay keenis ku eg xoga basaas iyadoo lagu qalabeeyay walxaha qaraxa ayayna argixisada caalamiga u adeegsatay dagaal ka dhacay Suuriya Iraq Yemen Afghanistan iyo Soomaaliya oo Daesh qaybteeda ku dhumaaleysata buuraha dhagaxa ay calmiskaad isku daygii adeegsiga drone-iska qaraxyada uu ka fashilmay diiwaan ahaana inta loo ogyahay 2010 ayaa markii ugu horeysay laga war helay in kooxaha argagixisada ay bilaaween inay adeegsadaan drone-iska yaryar ee muuqaal duubista suuqyadana laga heli karo waana ay jirtaa inay mar kale aad u badatay isticmaalkeeda warkaasna uu aad u baahay inta lagu guda jiray dagaalka iska caabinta ee Ukraine kala horjeedo duulaanka Ruushka haddana dunida ay ku tartamayso horumarinteeda qawaaritii ayaa hadda drone-iskan ka dhax arkay dhowr faa'iido waa marka koowaad ee qiimo jaban oo si sahlan loo soo iibsan karo marka xigtana ka shaqaysan karta bartilmaameedyo fogfog iyadoo laga xeelaleysanayo gabaabsiga ku yimid naftood haligayaasha ugu dambeena ah mid si fudud loo dhax dhigi karo bulshada si loogu xasuuqo sidoo kale waxay keeneen diyaaradan waxa la yiraahdaa waa diyaarad nooc diyaarada oo FPV liirad waa nooca qaada waa nooca duuliye lehen drone waxay qaadaa oo loogu talagalay in ay qaado qoryaha iyo qaraxyada qoryaha marka dhayeen waa RPG ga lagu rakibaa agab ciidan waa markaan mamnuuc waxa ka qof shacaba inuu la soo dago inuu keensado inuu ka ganacsado only kali waxa loo ogol yahay waa ciidamada qaranka marka waa nooca duuliye laheen sidoo kale waxay leedahay oo kiyaal laga hawo waa maxkamadda soo bandhigi doono iyo waxay leedahay computer laga wado baalkan laga wado gacanka ay leedahay remote control-keedu waa kana qalabkan wuxuu ku shaqeeyaa 2.4 caadi ahaan haddii lagu daro modelkeeda lagu daro dibadda wuxuu kala shaqeyn karaa ilaa 900 megahertz gudoomiye oo kiyaalaha laga hagana waa oo kiyaalahan meeshaada aad joogtida gashane computer baalkan oo remote control ka qabsane daroontaada meesha aad joogtid ah hagi kursiga ka fadhiisa oo kiyaali waa ku gashayin meesha mareen wala socotaa waxa geeyay bakaaro kale waa meesha rabto waxay socon kartaa ilaa 1 saacadood jaajar ah oo bateriga soo bandhigi doona 1 kg way 1 saacadood oo wuxuu siinaa dab in ay 1 saacadood ay dul wareegto markii ay dul wareegto kadibna meeshii bartilmaameedka ahayd oo aad rabtay markay dul imaado ayada iyo meeshii aad rabtay hal mar isku dhufanay meesha waxa ka dhalanaya qasaaro marka waxa loo adeegsaday dagaalkii Ukraine iyo Ruushka isku adeegsaday waxa adeegsatay dawladda Ukraine 2022 dawladda Ukraine waxay u adeegsatay in iskaga caabido Ruushka oo soo weeraray iyada qiimo ahaan waa 10,000 ama 8,000 marka waxay isku daro waxay jajabinay oo baabiinay gantaal joogo bilaayin shay ku baabiinay RPG ga lagu rakibaa baterigeedu waa wadataa gantaalga dul iimaanay waa dhax galay bul
gantaal waa gubtay sidaa darteed boqolkiiba 70 waxaa loogu guulaystay ruushka in uu gudaha u galo Ukraine ayadoo iskaga caabinayso diyaaradda noocaana oo FPV la yiraahdo nooca marka ma ahan nooc aroosyo lagu duubo ma ahan nooc lagu duubo ma ahan xafladaha lagu duubo ma ahan waa nooc kamid ah noocyada ugu khatarta badan ee loo adeegsaday dagaalkaasina soo shaabacday waan 2022 marka qalabkan oo kiyaalaha ah iyo daroonti marka isku hesho marka qatarteedu waa dareemi kartaa wadanka aan ahan waa dareemi kartaa gudoomiye oo ah wadan hadda dagaalo ka soo kabcaayo qatarahana ay yihiin qatare loogu talagalay isku gumaadayaan dawladda waaweyn gudoomiye waa kan iyadoo baraatika ah kursiyo ku fadhiya remote control waa haystaa oo kiyaalina u xiran kursigan marka daba kor u saaran yahay signalka soo u qaloocan wuxuu la socdaa asagoo meesha joogo meesha uu marayo la socdaa nooca battery ee uu watayna waa noocaas waa hal kg way wuxuuna daweeyka dab u siin karaa muddo hal saac ayuu daroonta wuxuu siinaa dab u siiyaa hal saac ayuu ku dul wareegi gudoomiye waatan marka waxa ku rakiban RPG ga lagu rakibay kor waxa looga rakibay batteriga aan sheegaynay oo ah waa kan ayadoo aan xirxirnay batteriga dusha ka saaran yahay batteriga marka wuxuu sameeynaa muddo hal saac ayuu jaajarina qaabka uu jaajarina waa sideena oo kiyaalaan inta la gashto lagu la socdo meesha aad marayso sidoo kale haddii ay aado dhan aan rabin remote controlka wuxuu sahlaa dhanka aad rabto inaad u soo leexiso marka waxay ku tusaysaa qaybta aad rabto saasay marka u socotaa RPG waa ku rakiban yahay waa daaran tahay kaamiradeedu waa tana saas u socay marka meeshaana dul imaado marka waxay u baahan tahay bis inay sidaan u gasho ay si adag ugu dhacdo iyada markay duusho xawaale zaid ay ku socotaa waatan gudoomiye saasay u taala qorib baasuuka lagu rakibaa marka ama RPG qatarta ay leedahay marka qatarta ay leedahay maxaa waay qatarta ay leedahay mas'uuliyad sharci ayaa ka dhalanayso oo ah in lagu argagax geliyo ama lagu dhibaateeyo hawada sidoo kale ay keento khasaare dhaqaale waxay lumin kartaa oo ay sameyn kartaa qalqal hawada ah sidoo kale bulshada ay cabsi ku sababi kartaa maxaa yeelay baashaan oo ninka soo duuliyaha ayaan arkeenin meeshay u socotaan aqoolin cidda wadana aadan ogeyn oo ninkii waxa marweyn iska joogo afgoy iska marayso ayaa dushaada imaanayso marka waa cabsi ka weyn ma jirto dagaalada casriga ah ayay ku soo caan baxday waa one way attack hal mar ayay meesha bartilmaameedka ahayd ku burburaysaa ayadana waa ku baaba'e wixii lagu dhuftana waa baaba'inay ujeeddada iyo waxaa loogu talagalay maxaa waaye waxaa loogu talagalay adeegsiga ciidamada ayaa loo ogol yahay looguma talagelin inay adeegsadaan dad shacaba inay soo degsadaan looguma talagelin marka waa arrin sharci darro ah in la soo dhoofiyo marka faa'iidooyin ay u leedahay ciidamada oo faa'iidooyin badan ay u leedahay ciidamada inay adeegsadaan in dawladda ay adeegsato rumeeyaashii riyadii argagixisada ee raadkooda la soo afjaray laguna soo simay maxkamadda ayaa jeenaya Soomaaliya isaga xirnaa waxaana la dhaxmaray shirkado gudaha ah oo kaargooga ka shaqeeya eedeysanaha koowaad Cabdisalaan Cumar Cabdiraxmaan oo leh shirkada aan diiwaan gashan oo ka shaqeysa kaargooga ee Saami Kaargo ayaa ahaa xubinta alaabtan ka soo qaaday Jeena una gudbinaysay dhanka kooxda argagixisada isu duwahan baxsadka ayaa macmiil hore la ahaa shirkada Safari Kaargo oo alaabaha u soo qaada Soomaaliya markanse waa uu ka wacday Safari Kaargo isagoo hindisay dhagar ah inuu u wareego shirkad dhawaangal ku ah suuqa kaargooga oo lagu magacaabo Hatuf isagoo ka faa'iideysanaya khibrad yaraantooda shaqo maadaama ay suuqan ku cusub yihiin eedeysanaha labaad Cabdullaahi Cali Abuukar waa maqana haysta dhalashada dalka Kenya waxaana uu dhammaan hawshan soo iibinta iyo dhoofkaba wadaag kula ahaa eedeysanaha koowaad Cabdisalaan Cumar Cabdiraxmaan oo Jeena jooga
sirdoonada iyo nidaamyada eksraayada aeroboortyada dalalka jeena iyo imaaraadka carabta waxaa soo gudbay aadan cadde international airportna soo galay kow first person view FPV drone nuuca qaraxyada la falgeli karta xambaari kartana culays 7 kiilo oo lagu soo dhex qariyay makiinada qasabka iyo birta hilibka shiida labo gaagalis oo kiyalka digitalka ah oo la falgelaya FPV drone iyadoo la marayo xiriir software Betafly saamaxayana in la helo dhammaan macluumaadyada droneska sida bartilmaameedka iyo muuqaal duubis 5K ah lagana kormeerayo dhammaan dhaqdhaqaaqyadaasi iyo kuwa kale oo dheeri ah oo kiyalka gaagalis 3 Subriser ama silencer od caburiyo lagu xiro qoryaha AK-ga noocyadooda Soomaalida ay u taqaano raashka iyo M4 qaybihiisa kala duwan oo Team PUBG Mobile iyo Somali Gamer ba ay fahmi karaan qalabkan waa si dhaafi kari waayay isha sirdoonka ee aeroboortka Aadan Cadde ka howlgala qalabkan sida sawirka muuqato waxaa la yiraahdaa dhawaaq caburiye saddex shaqo ayuu qabtaa waxaa lagu xiraa qoryaha AK47 waliba kuwa afka jeexa wuxuu gudoomiye afkaas hore ayaa laga furaa marka la furo saasa loo gelinaa saddex shaqo qabanaa marka wuxuu sameynaa shiishka cabdira meeshuu taagan yahay kama halaabayo mana ka leexanayo waxaa soo saaray wadanka Mareykanka shaqada koowaad waxa waaye waa in shiishku si u yahay oo qoriga jugt uu dhahaye oo laga yaabo inuu shiishka kor u dhigo ama hoos u dhigo ama meel xubin aanan doonayn inay kaaga dhacdo ayuu sahlaa in xubinta aad rabtay de madaxa ahayd haday isha ahayd haday sanka ahayd haday wadnaha ahayd inay kaaga dhacdo qalabkana sahlaa lambar 2 wuxuu sahlaa in laamaha amniga aysan arkin meesha xabadda ay ka soo dhacday oo wuxuu qarinaa hulci xabadda habeen marka la rido waxaan ogsoonahay in holac uu ka baxo holacaas waa qarinaa sidoo kale wuxuu sameynaa dhawaaq caburiyo waay zuk soo dheeysay ama bul soo dheeysay in lagu dhacday in kale ma la kala ogaba dadku waa iska fadhiya markaas adna kugu dhaha waa kugu taala meel ka soo dhacan lama yaqaan waa qalabka marka muddo gudoomiye qalabkan waxaa soo saaray wadanka Mareykanka asal ahaan shiinana waa sameeyaa alaabtan miska dheena maya waa kan qoriga lagu xiray way ku xiran tahay qorog AK47 ay ku xiran tahay afkaas ay ugu xiran tahay marka iyadoo afku ugu xiran waa markaan dhawaaq caburiyahan qiimo ahaan wuxuu joogaa lacag $1,000 waa dhawaaq caburiyahan wuxuu ku qarash yahay qorog AK47 muhiimadda uu leeyahay marka aad u dareemaysaa qorigi ayada isku lacag waa marka ujeedka laga leeyahay in baal $1,000 joogo mamnuuc ah in la soo geliyo wadankii waa dareemi kartaa mid gudoomiye waa ujeedo argagax gelin ah oo ummadda masaakiinta in lagu dhibaateeyo taa mid gudoomiye qaabkee loo keeno marka waa soo laabano maadaama aan fahnay waxa ay tahay iyo dhibaatada ay leedahay qaabkee loo keeno wadanka qaabkee lagu soo geliyo أو مان وحلو سوق الشيء ماكينة أو دبهانتي أنت تالو ماكينة واتاسا أيضا مركل في فرنا واتاسا وعقاب كل سوق قليل بي ودنك وعيدا ما أمنوا أي قبتين جيت كوين أو ماكينة تقسم كشيدة أو سيد الصور كم وقته أيال لحق الشيء قاب كيلو لحق الشيء ما شان فرن وإسكو حرنيت وحنا كو حرنيت بولول كو حرنيت بول هان marka inta la furay boolashi ayaa la dhaxgalay waata marka iyadoo aan sawir ka qaadnay waata marka ku dhex jirta dartan sawir sida ka muuqato waa ku dhex jirta waxa arkaysaa mid gudoomiye geedkana arkaysaa way ka muuqataa sawir waa marka la qabtay sawir laga qaado sidoo kale waxa la socdo makiinada hilibka la socoto oo taalo waatana iyadoo la furfurayna iyadoo la furay oo baalashi diyaaradan baalasheeda dorontan baalasheedan oo furfuran anaga aad isku xirxiran oo furfuran ayaa dhax taal bateriga waa gooni kan waa gooni baalashan waa gooni si oo ala bolbol loo furay meesha lagu wada dhex daashay marka waa taaydo la soo bixinayo
calaa baala laga soo bixinaa baalkaa laga soo bixinaa waa baashaan baasha la dhex gashay baterigaa laga soo dhexshay baalashaasna waa baalashaan gudoomiye marka waxaan rabnaa qaabkuu ku ogaaday garoonka diyaaradaha aadan cadde ciidamada amniga ee joog qaabkay ku ogaaday ma intaa digis baalku fureen dhex galeen waa maya qaabkay lagu ogaaday skiinerka loogu talagalay inay dhex maraan qalabka ayaa sawirka soo qaadnay waa kan waxaa laga shakiyey lugahaas yaryar waa kushnootooyinka waay waa kuwaana kushnootooyinkaas waay waa hadda baal ku rakiban kushnootooyinkaas ayaa meeshaa ka muuqda sidoo kale waxaa ka muuqdo dhawaaq caburyahan oo isku dhegan qaybta hoose dhawaaq caburyahan oo isku dhegan ayaa ka muuqda waa la shakiyey marka la shakiyey maxaa la sameeyey waxaa la wacay cilmi oo goobjoogaa la wacay cilmi waxaa la baashan furfur waa ninka furfurayna waa cilmi marka la furfuro maxaa loogu tagay marka waxaana loogu tagay ugu dambeyn qaabka iskugu dhegneedna waa qaabkaana la iskugu soo dhejiyey lugahaasaa la aqoonsan marka kushinootooyinka agabka ayaa keena marka waxaa keenay cabdulaahi baasaboorkiisa waa kan kiyaatiga cabdisalaan sawirkiisana waa kan waa labada eedeysane ee dalka dibaddiisa ka soo geliyey agabkan eedeysanaha saddexaad ismaaciil yuusuf siyaad madaxii obereshinka shirkadda haatuf wicitaan taleefon ah ayaa Sebtembar 2024 loogu sheegay in laga rabo soo qaadid kaargo alaab culeyskeedu yahay 50 gram eedeysane ismaaciil eedeysanaha eedda la xiriirta kiiskan marka la lagu weydiiyey wuxuu sheegay in alaabtan uu ka soo dalbaday bishii Sebtembar 2024 nin la yiraahdo daayir qaab qaaditaan ah inuu u rabay qaaditaankii way ku heshiiyeen waa golgortameen $10 calaa kiilo ku golgortameen sidaas ayuu qaybtii jeena ugu xiray 12kii bishii 7aad ay shirkadda soo qaaday waana waqtiga shirkadda daala ay soo qaadayso xarunta kilometer 4 la keenay agabkan waqtigaas marka waxa loogu sheegay in la soo qaadayo makiinad waan soo bandhigi doono nooca ay ahayd iyo qaabka dhagarta ah ee loo geliyay alaabtan iyo alaabta waxay tahay soo bandhigi doona gudoomiye marka ciidanka dhisa markay qabteen wuxuu u sheegay alaabtan cid lahayd oo daahirna waa ku tagi doona xafiiska xiraalinta wuxuu iska xil saaray shirkaddan horta ma jirtaa inuu soo ogaado gudoomiye shirkaddan inay jirto bakaaraha ku taalo maadira shati ganacsina ee leedahay oo maamulka gobolka maadira sidoo kale waxyaabaha agabyada la keeno shirkadda ayuu soo ogaaday waa qaab saasa ay u xirxiran yihiin alaabta qaabkaasana qof walba magaciisa ugu dul qoran yahay gudoomiye xafiiska asagoo iska xil saaraayo shirkadda waxyaabaha ay diido iyo waxyaabaha ay keento wuxuu wareystay maamulaha waxaana dul geeyey computerka groupka shaqada waxaana meesha noogu soo baxday in hadda ka hor gacan la weydiiyey soo ma qaadan ay dhaheen waa shirkaddii mar aan dul tagno waa computerkeeda meesha marka gudoomiye marka inta la joogo agabkii waa loo soo diray agabkan haddii lagu soo diray waxa ay keenayso haddii miinooyin lagu soo xirxiro oo jawaan lagu soo saaro waa soo qaada waddankaa soo gelina wax aqli galaa maaha maxaa marsiisiina weydiiyey mas-uuliyadda meesha ay ka dhalanayaan meeshaan wax habraaca oo furfuritaan ah oo wax kale ah ama mas-uuliyad ah meeshaa kama jirto shirkaddan waa kaargo miinooyin jiina haddii laga soo raro waa soo qaaday maxaa caddeehayo waxa ay soo qaadeen maba fiirinba gudaha ma u furfurayna maamulkiisa ka mid ahay gudaha loo furfuraa waliba waa la dabagadaa maxaa yeelay waddanka waa ogtahay waddankaa ka shaqeeya macnaha operation manager ka ahay shirkadda haatuf kaargo aan lahaa sharci shati wax walba leenahay Facebook iyo TikTok leenahay marka aniga xayisiina sameynaa marka xayisiinta sameyno dadka la baxay kala soo dadka la markaas la soo xiriiraan anana soo hadlaa dadka marka oo la soo hadlay dadka la way kala baxaa marka qofna qof wixii fahansan waa marka kula soo hadlo wuxuu leeyahay adreeska soo dirbis ku dhaha qofna wuxuu dhaha wixii sharax maxaa la ogol yahay maxaa la ogoleen ka jigta lagu soo qaadaa qofsaas ku wareysana qofna qof wixii fahansan waayo wuxuu ku weydiinaa bis adreeska bis ku weydiinaa ninka wala soo hadlay adreeska uu weydiiyay adreeska u diray kadib oo soo aan wuxuu dhaha alaab oo konta kg arana soo qaadin waxaan aniga kiilada wax ku soo qaadnaa $11 markaas wuxuu dhaha aniga konta kg waa kiilada baan tahay $11 dhibi kara $10 igu soo qaada
waa kuu soo qaadayna diyaar waan dhahay kadib adreeska u diray alaabta xagga la geeyey alaabta marka xagga la geeyey marka waa la baaraa waa la fiiriyaa shayga kadib waa la dawalaa waxaa boona lagu soo qoraa alaabta waa qaban lagu soo qoraa marka boona la soo dirin kara boonada u diray kabacdi alaabta waa la soo qaaday alaabtana waxay soo martay wadamo badan soo martay waa la soo baaraa baaritaan lagu soo maaraa laakiin mashiinno ah ku dhex jiro ku qarsanay sida la sheegay markii la keenay kadib garoonka alaabta imaatay kuwa daalo oo alaabta diyaaradda noo qaabishan aan soo wacaan alaab soo doonaa la dhahay marka ay imaaday tiimkan maqsuudka ay qabteen magacayga waxaas laga qoray kabacdi waxaa la yidhaha alaabtan qof iska laha laga rabaa diyaar waa nahay qofka isla marka waa wacay ninkaan u geeyey waxaa dhaha ninkaan alaabta iskale ku qoran kadib ana waxaa lahay damiin fasaxaa tahay markaa damiin wacda fasaxaa tahay la dhahay waxaa laga joogaa adiga 2 bil bari 3 bil camal laga joogaa amanayna kadib waa la soo wacay waxaa la dhahay waxaa imaataa dambarista laga rabaa imaaw marka aniga waxaas taa shuqul ku leeyahay markaas la soo wacay ani qarashkii ku soo baxay mootaan iska soo bixi ana aqaana meesha imaaday lacag ku soo bixi waa imaaday kadib markii waa la wareystay kadib bacda waxaa la dhahay xariga taa la dhahay aniga mas'uuliyaddiisa aan waxay tahay alaabtaas aan keeno qofkii alaabta iska lahay in haddii hadhow loo baahdo alaabtaas macnaha hadday noqoto wax mamnuuc aan la ogoleen in qofka alaabta iska lahay aan keennaa waajib nagu ah qof markaa keenana fasaxaatiin aan la dhahay markii dambe oo imaado la soo wacay oo dhahay imaa la dhahayna anaa imaaday kadib waxaa la xabsiga tahay marka waran tusaale ahaan taliya ciidan aan ahay oo askartii kamid oo qof dilo ee la dhaha ka waran oo askari soo xiro oo la dhaha ka waran adigna askari ku dambiya tala dhaha ka waran magacaaga muxuu ahay Ismaaciil adiga shirkadan oo saami ma ahay shirkad kala tahay haatifka argo Allah shirkadan haatifka lagu dhahaa orange manager ka ahna marka magaca saamiya ku soo qaadeen miya maya haatifka argo ku soo qaadana aniga isbuuc alaabo keenaabo yaa ka dalba alaabta ninkaan la soo hadlo adres soo diro dhahay marka xagga la joogo macnaha warehouse waxa la jira xagga shaqeeyo adres qof loo diraa qof alaabta soo iibsana ama online ka iibsado ama qof xagga u joogo kadib alaabta xagga geeyna qof horta inta aanan wadada kala aan gelin adiga alaabta yaa ka dalba soo operation matiid adiga yaa ka dalba alaabta lagama dalba aniga qofku waxa la weydiiyay adres la is weydiiyay adres qofka soo gadanay aniga adres aan la weydiiyay bis adres aan la weydiiyay yaa ku weydiiyay adres ninkaan ay weydiiyay daar adreska soo diro ana xafiiskina waxa ku yaala adreskiisa soo diro dhahay xafiiskina waxa ku yaala adreskiisa soo diro kadibna waa u dirtay adres marka uu weydiiyay kadib adres bisa u diraa alaabta qof soo iibsanaya ama online ka iibsado ama qofka lagu soo iibiyo waa dhamaato waa qofku weydiin karaa bis ka bacdi keejigina kula shiibis alaabta marka daadir ma ka dalba ninkaan adreska soo weydiiyay aniga ninkaas adreska soo weydiiyay kadib adres soo weydiiyay waa soo wac kadib alaabta Soomaaliha manifest lahaa manifestkeeda aa alaabta manifestka waxa ku qoran accessories qoran alaabta machine marka alaabta la furo shay uu qoraa la fiiriyaa magaca kaas loo alaab qoraa mar la qori accessories qoran accessories maxaa laga wadaa badanaa waxa loo isticmaalaa waxyaabo electronic oo sida aan telefoonada waxaas ahayn oo badanaa sida waxa loo isticmaalaa hal qalabka oo kaamirooyinka oo kale iyo tripodkan oo kale iyo waxyaabahaas oo kale lagu qoraa accessories lagu qoraa ama microphone oo kale iyo waxaas iyo machine caadi waxaas alaabta marka waa soo qaadeen soo qaadnaa waa keenteen yaa ku soo wacday marka hore alaabta isbuucla noogu maata ku diyaarada soo alaabta ay maatay soo doonaa la dhahay aye marka xafiiska tagana kuwa nabadgudda ay qabteen kabacdi xafiis waxa la geeyay garoonka la geeyay magaca waxa laga buuxiyay waxa la xafiis shirkadda maxaa ka taalahay operation manager ah dhahay waxa alaabta qofka alaabtan qof iska leh waxa la tusay waxa la IOB waxa la jiro alaabta lagu aqoonsado IOB kan qof iska lahay mishkiin kartaa leen kabacdi ana telefiga la keen loo inta soo telefiga la soo bixi manifesta ka fiiri kabacdi waa arkay waa wacay kabacdi ninka inta wacdid ballan yalla inta waa ballanbi kabacdi waa loo tagay waa la keenay kadib waxa la damiyo waa fasaxaata adiga alaabta qaado whatsappkaaga hadda ma laga helaa waxa kale laga helaa aniga intaas oo qof oo kuna qof waxay soo weydiiyaan daroon markay soo weydiiyaan lama ogola dhaxal lama soo qaadana hadar ciidan lama soo qaado daroon lama soo qaado taasna telefiga laga ku qoriyo laga helaa daroon lama soo qaadin adoo daroon lama soo qaado dar ciidan lama soo qaado taasna telefiga ku qoriyo laga helaa eedeysanaha afraad daahir cabdullaahi cali maxamed waa furaha iyo wakiilka shaqada la haya kooxda jeenah ee cabdisalaan iyo cabdullaahi kana dalbay alaabta eedeysana Ismaaciil waxaana ku soo wada dhacaya dhammaan xiriirada loo qorsheeyay fududeynta soo gelinta iyo u gudbinta argagixisada eedeysanaha labaad daahir waa eedeysani uu sheegay ninka la yiraahdo Ismaaciil eedeysana marka waxa laga weydiiyay eedan loo haysto wuxuu sheegay inuu soo wacay cabdisalaan sawirna uu soo diray alaabtaas ayaa ka soo baxaysay garoonka cadda gadoon intaas kadibna garoonka laga soo wacay sidaasna uu ku tagay muddo gudoomiye meesha muhiimka ah oo boontiga muhiimka meeshan waaye alaabtan waxay soo saari jireen nimankan oo aan shatiga ganacsiga lahayn
niman la yidhaahdo safari cargo haatuf oo 4 bilood jirto ay dhex mareen markaan ujeedka maxaa marka safari iyo nimanka waa is yaqaanaan si marka haatuf oo cusub oo aan fahmaynin waxyaabaha qaar lagu qaldi karo ay soo dhex marsadeen taasoo caddaynayso hawshaan inay ahayd howl abaabulan maadaama kaargowga macaamilka la ahaayeen ay ka wareegeen eedaysanaha marka wuxuu sheegay marka shirkaddii ay soo wacday alaabta lagu wareejiyey ugu dambeynna laama amniga ku qabteen meeshii sidaasna ay ciidan ku xireen sidaasna uu ku keeyey inuu cabshaan la xiriiro nambarkii cidda loo geehayey inuu soo diro subaxdii nambarka la siiyey sidaas ayuu eedaysanay cabdiqaadir sheekh aadan ku soo xiray oo alaabta ugu geeyey mudane gudoomiye xafiisku wuxuu sameeyey qaabka iskula xiriireen asiga iyo eedaysan ismaaciil asiga eedaysan ismaaciil waxay iskula xiriireen by WhatsApp iyo wicitaano ayaa jiro WhatsApp-ka linkiga asoo loo diraayo ayaa helnay markaan baaritaanka cilmiyeysanay forensic lab la sameeyey iyo alaabta iyadoo loo diraayo alaabtu waa taasaa marka wuxuu leeyahay ku qor magacaaga iyo nambarkaaga markaad u diraysid qof alaabta aad ka iibsanaysid si aysan magac la'aan u noqon alaabta yaa diraayo ismaaciil aa diraayo wuxuuna u diraa daahir ma sameeyey magaciisa ku qoray alaabta sidoo kale waxaa rabnaa mudane gudoomiye codadka dhex maray eedaysana daahir iyo cabsalaan taasoo ku caddaynayso in alaabtan cabsalaan uu ka warqabay eena ahayd alaab uu u waday khawaarijta waa hurdayniyo haddaa hurdo ka soo kacee ay ninka u geyna ii sheeg haddaa wareejina alaabta haddaa qaadaay ay isoo diray haddaa u geyna lambarka isoo dir loo geynayo waana wacaya ninka oo loo geynayo waa wacaa saaxiibo si hiishala camal mudane gudoomiye codkan waxaa ka muuqato inuu dhahayo alaabtaan maxaa u haysaa alaabtaan maxaa kuu geey alaabtaan ma gudbin miya oo leeyahay cabsalaana dhahayo oo eedsanaha koowaad ah waxaa lahaa daahir maxaa yeelay alaabta in muqdisho soo gaartay cabsalaan wuu ka warqabaa inay elaboorka dhaaftay oo daalo ay hayso wuu ka warqabaa laama amniga inay la socdaan laakiin kama warqabo daahiraa marka wacay waa ishaleeli waaye mar labaadka saa soo wacay saaxiibu subaantoonna soo wacayay waxaa kuu dhacay daahir wuxuu leeyahay hur waa jiifay waa hurdaayey yaa u geeha alaabta ma weli taalo saaxiibu naga bobsii gey oo leeyahay taasoo ku caddaynayso cabsalaan inuu ka warqabo alaabtaan codkan labaad cabsalaan wuxuu leeyahay ninka aad nambarkiisa isiisay waa isla hadalnay hadda ayaan u qaadaa codkaasan shidaa waa isla hadalna waa u geynaa ii keeno waa isla hadalna waa u geynaa waa cabsalaan marka codkan wuxuu leeyahay waa isla hadalnay haddaan u geeyaa yaa isla hadlay sheekh aadan iyo waxaa isla hadlay daahir nambarkayaan soo diray cabsalaan too joogaa jena sheekh aadan too joogaa bakaara carwo liimon yaa isku xir marka waa is yaqaanaan dad is yaqaanaa isbacdo dad is yaqaanaa wax isku dhiibto mudane gudoomiye haddana wuxuu leeyahay alaabta markaad soo qaadaysay ma furfurneed taasoo ku caddaynayso alaabta hadday furfurneed waana la fahmay khataraan ku jirnaa yaa dhahayo cabsalaana dhahayo yoo dhaha daahiruu dhaha maxaa caddeehayo iskama dheheyno waa tanaa cabsilano alaabta markaa soo qaadaysa ma furneed maya sidii u xirantay whatsapp ma igu soo dirtay hadda kuu soo diray ii soo diray codka marka wuxuu ku caddeehaa cabsalaan alaabta haddii la furay laamaha amnigu way ogaadeen khataraana ku jirtaa wixii aad waddanka soo geliso qoyro sharciga ahaa oo agabka ciidan ah oo daroonta loogu talagalay ciidamada ah
in loo adeegsado falal ka baxsanna u adeegsanayto adiga oo aad u geeribto qawaariid ayaa la